بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومضى الصومالية ملك السؤال جوكتو وحن لها دمانتين عيد وناكسن عيد المبارك وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ملك السؤال جوكتان وحن إذن الله مركل عيد وناكسن ولا ليال قارهان انت حجك ما انت تاغن وحن لها أيقنا الله إذا كأقبل عماشه دعاء الصومالي أسود دعين إيسان الله أقبل أيضا أنا أيان لها تدك الصومالية ملك السؤال جوغان sida caadada iyo dhaqanka noo ahayd boolaalayaal maanta waa maalintii farxadda waa maalintii cafinta waa maalintii isu naxariisashada dadka Soomaaliyeed ha eegaano dariskooda ha eegaano danyarta ha eegaano walaalka Soomaaliga ee walaalka ah inta aad haysata aan haysanin ha ogolaan ilmahaagu inay faraxsanaadaan ilmaha dariskaaguna aanay faraxsanaanin waxa aan haysanaa si kasta ay u yaryihiin aan wadaagno aan isku dayno ilmaheena meel kasta ay joogaan inaan ka farxino aan isku dayno kuweena waxaysto waalidiinta qaarkeed kurbada iyo maxaan ku iraaday walwalka ay qabaan inaan ka bi'ino oo qalbigooda maanta maalintii farxadda dadka dhammaan inay farxaan ayaa haboon sidaas daraadeed waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan walaalayaal hal isu naxariisto hoos la isu eego dariska waliba gaar ahaan xuquuqda uu leeyahay la ogyahay hal la eego inta danta yar xuquuqda ay leedahayna waa la ogyahay idan hal la yeelo dhamaanteen dad muslimiin ayaan nahay dhaqan muslim aan yeelano oo wanaagsan inta kadib sidoo kale waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo meel kasta ay joogaan nabad inay qaataan walaalayaal in badanna waa inaan ku celceliyana kama caajisayo dhiig daadanaya wax hal kama imaanayo walaalka Soomaali ah si kasta oo aad u kala ra'yi duwan tihiin in dhiigiisu daatahay wax maslaxad oo kugu jirta malaha guud ahaan mujtamacan u sheegaya Soomaali dhiig badan wax ka soo daatay in maanta dhiig uu sii daatay sax maaha meelaha dadka walaalaha ah ay qalbigooda wax isu gaareen maanta waa fursad ugu fiican oo Ilaahay aad u noqonayso aad Ilaahay cafis weydiisanayso aad Ilaahay naxariistiisa dalbayso hadii laga gardarna inaad cafinayso walaalkaaga hadii aad adigu isleedahay amaad gardanayna inaad asiga raali ah u tiraa adigana aad joojiso gardaradii waaye wax xal ku jira walaalayaal waaye aragnimo nagu filan iyo khibrad nagu filan waa leenahay oo aan ku fahamno in aanan colka iyo dilka iyo kala irdhowga aanu waxba noo soo kordhinaynin waa aragnaa aan ka joogno walaalayaal dunidu wayna dhaaftay dadku wayna dhaafeen nagama karti badna nagama wanaagsana nagama waxaysna halka shay aan lagu dhaafay waxay tahay bas inaanan is aaminayn inaanan is dhowreyn inaanan kala dambaynayn dadka madaxda ah meel kasto ay joogaan walaalayaal waqti ay leeyihiin Soomaali waa dhamaaday waqtigan inta yimaado waa iska joogaya anigu u dheelaha nin walba waxa uu ku joogayaa raali ahaanshaha dadka nidaam ayuu ku joogayaa oo asagu aanu lahayn ee dadku ay leeyihiin ninna shaatigiisa ma tolan karo walaalayaal horteen jira waay waa isku soo dayay waa la waay maanta inaan isku sii dayna qaarkeen kuwa mas'uuliyiinta ah madaxtinimada maanta dalka meel kasto ay joogaan in mustawa kasto mas'uuliyadaas ay ka hayaan yaan hadalkaasi yaan ula dan leeyahay oo ula jeedaa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta idinku sharci doorateen fursad la siiyo dhiig xal maaha waa ku celinayaa mar kale dhiig xal maaha waa ku celinayaa mar kale mas'uuliyiinta dhaqanka culamaa u diinka bulshada rayidka dadkeeda firfircoon uqaasha cid walba siyaasiyiinta madaxda mas'uuliyiinta iyo kuwaan ahayn mar walba waa ku celinayaa inaan dhaho walaalayaal berri qabriyada korkoodayna isku salaami inta aan dili lahayn markay dhintaan kadib yaan xabkanta saarno aan dhahin waa heshiinay xala dhalay baan nahay xala dhalay ma noqon kartid dhiig hadaa daadis afka waa laga dhahayaa laakiin qalbigu ma dabiyo ha gaarsiinin dhaawac qalbiga walaalka oo aanu ka soo kaban karin mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasto aan joogno Soomaali way fiican tahay dalku rajo ayuu leeyahay maanta ayuu ugu rajo badan yahay waan soconnaa inaan dalka dawladnimo dalka dhan mas'uuliyadiisa qaada sida dawladaha adduunkuba ay ummadooda iyo dalalkooda mas'uul uga yihiin inaan u noqono walaalayaal shabaab dalka aan ka xoreysan deymahana lagu leeyahay cafintooda aan iska dhamaysto aan bixinno maaha in laga cafiyaa diyaar loo yahay sida deyn la isaga cafiyo standardka iyo dhaqanka iyo waxa ay leedahay aan marro
xoolaheena iyo xooggeena aan iswaafajino, aan yarayno gacan horsiga, aan yarayno mushaaraadka aan qaadanaynahay in dad nagu kabo. waxaan ku yaray karna waxay tahay dhammaanteen inaan ogolaano inaan bixinno waxa dowladnimadu ay leedahay. wax kasta oo wanaagsan oo la jecel yahay qiimi loo bixiyay leeyahay. dowladnimadu waa qaali, qiimi loo bixiyay leedahay. dadka wax haysta ee cashuurta dowladda la dhuumanayo ee ka leexleexanayahay waagahaasi waa dhammaadeen. cashuurta ha la bixiyo si aanan waana dhibe inaan maqalno igadaa shirtayo saas ayay tiri.